maalintii ninkeygu uu ka tagaayay Istanbul aan deganeen uu baxayay aniga dhiiga caadada ii joogay garoonka ugu raacay wax uur ah ma aanan lahayn garoonkii oo tagay waa soo maxsalaamay kadibna gurigeyga ayaan ku soo laabtay waa la joogay waxay tiri markii taqriiban ay ka soo wareegatay 14 maalmood camal xiliga xaajiga oo bax 13 maalmood camal ay ka soo wareegatay oo guriga aan joogo ayaa waxa dhacday tiri in ay iga halaawday tubada oo jikada loo isticmaalayo meesha alaabta lagu dhaqo tubada loo isticmaalayo oo qaybta qasaalada iyo waxaas dhan ku xiriirsaneed dhar dhaqaan isdhahaayay tubadii hoose biyo ka deene qasaaladina way qaylinay dhahday biyihii ma qaadanayso qowqeelada qasaaladii way qaylinay marka lambarkii aan wacday tiri oo gaaska ninkii ii keenayay waxaan u sheegay tiri in ay iga halaawday bahashi wiil Soomaaliya markuu wuxuu dhahay nin Turki oo ku fiican waxaas lagu soo diraaya oo wiilkan la shaqeeyo oo turjubaan reerkan u ah oo gaaskii waxaas keenaanay dhahday kabacdi ninkii ii yimid tiri ninka markuu ii imaaday wiilka Soomaaliga ahna waa uu la socday tubadii ii wixii habeeyay waa iga tagay dhahday ninkii markuu tagay haddana maxaa dhacday isla maalintaas inaan haddana gaaski dalbaday labahan gaaski ima taali tir halhaan waa markay go'do horaan ka dalbanaa mashiin oo waxaan qabaa tir korontada loo isticmaala asagana oo cuntada korontada karinayso balse mar walba gaaska markuu iga go'a hore ka dalbanaa wuu ii imaaday wiil waxay tir nin dhaxaad waayo oo Turki ah oo bashaash ah oo kaali iska arag ah markuu ka kaftamaa af Soomaaliga dhex galay xoogaa oo ka fahmaya ninkaagi ma baxay haa wuu baxay goormo baxay xiligaas soo baxay nin oo waxa waa kaftan badan gaaski ii rakabay haanti ibirteedo iga qaaday dhahday telefoon weyn iyo telefoon yar ayuu watay telefoonkii yaray oo meesha kaga tagay ku talagal inay ahayd in kale laakiinse ani ma sheegi kariye dhahday ilmeyga marka afarta cunug waxay tiri way kala fogaayeen dhalma ahaan maadaama ninkeygu oo maqnaay waxay dhigtaan madrasa meesha ka dhow oo Soomaali ay leedahay ayay dhigtaan dhahday ninkii waa baxay 30 daqiiqo kama soo wareegin haddana wuu ii soo laabtay waa mobilka kaga taga meesha ana jikada markuu asig soo baxay ay ugu dambeysay tiri dib dambe ugu laabanin xili ilmo cunta u karinaana lama jooginay tiri waxa isku diyaarnaa inaan iska seexdo xiligi ilmaha laga gaaray waqtigooda cuntada dhan saakaan karsaday waxay tiri marka iridio ii soo garaacay waa gambaleelka markuu yaaba aniga waa maxaa dhacay mobilkeyga ka tagay waa ku soo qabanaa ma dhihin iridiyan ka furay tiri qadartana meesha ka qorneed iridi markaan ka furay tiri ninkan wuu soo gudbay markuu soo gudbo warwareystay maxaa waxay yeeray TV-ga ii shidan qolkii TV-ga u soo gudbay ani maxaa u soo gudbay iyo waxaas iyo waxa dhanba ma dhihinay dhahday kadib ay wuxuu dhahay biyo caba ma isiin kartaa markaasaan dhahay haa frinjeerka tagay dhahday biyo cabitaanada diyaarsana ku jireen u soo bixiyo u keenay biyaha goosa haddana xanuunay shaxan rabi lahaano maanta maxaa la lahay waa ku heestaaba intaan waa ka nasanaa shaqada camalno inta wax geey aba idhibtay mootadeeda hoos ay baakiman tahay waxay saas u idhahay dhahday waa ka aamusay marna baawurka gaaska oo wadaa dhahday markuu xaafadaha caadiga warwareegsanayeen wuxuu wataa oo la leeyahay kuukarkiya gaaska tubada iga halaawday waxaas ii farsamayaqaan uu yahay gaaskan wuu keenaa baawurka gaaskana asaga ayaa wado ana Turki ma joogay wixii la ii sheegay idin sheegaa mogtiin marka waxay tiriye sidiisa u ahayd ninkan jikadii soo galay tiri bahash jalmada oo korontadan dabka gashtay soo biyo soo karkariyay sokortii wixii anoo wada meesha soo dhigay bakeerigiisa u shubay anna bakeerigiga shubtay bakeerigi markaan shubtay bal film la jilaa bakeerigi shaax ahay markaan shubtay oo wuxuu ugu dhahay sokorta iskaga badi sokorta doo iskaga badi biyo karkaraha agtiisa yaalaan bal moo ku darsadii tiri biyo caadi ah tubada iga keeno dhahay tubadii aan soo aaday mashaaxiyo wax igu daray Allahu wa'lam nincu isiya afka gashtay maninaciya waxa la haayeen ma ogey tiri markaas aamiiro dhan igu dambeysay soo doonto iga yeeshtay tiri waan oo iga dhaqaaqaninki anoo qolkii iska jiifo oo ilmihii xiligoodii inta la gaaray dad meesha iiga soo wadeen olba anaa soo wadi jiray ilmihii irida kusoo daaleen irida ka furay anoo madaxii laba yahay madaxii dhan waaweyn yahay irida ka furay dhahday ilmihii irida markaa ka furo wax la iga qaldan waan dareemay tiri inay wax si iga yihiin ma aqaani qoyaan iyo waxaas waa arkay xaalkeyga wuxuu yahay dhan waa ka si waayay dhahday shaaxi asaga oo shubtay meeshiisa ayuu yaala afkiisa ma saarin ana keyga oo kaliya cabe waxay tiri ilmihiya qadasi siiyay wixii qolkii yaa shaax iyo wixii ka soo qaaday ilmihiya cunto siistay wixii seexanaya iska seexiyay waa qubaystay duhura dukaday waxay tiri maalin gaaska hadana markuu iga go'ay aan wacday oo iimid waxaan ku dhahay maalintii aniga ma xasuustay xili baxday ee xili imaaday intaba ma xasuustiye walaalow si wax u jiraan ku dhahay markaasuu wuxuu ugu yiri waa ugu qoslay markaas maxaa ku qoslaysaa waa iska ka celin waay naag ninkeeda dhowr iyo 10 maalmood oo ka maqan yahay ma buu ekeeno adiga qof oo waxa ahayd no horor ay camal
وأسكا علي واي حقاقا كسيك بعدين وكاتك من واسع قانتا أمالينا وريا واكو دعبينا سانا كويلا سانكو أي قبس دي تري يا أود دعبيني يا ستقانا بل عدة آتقاني أود دعبي يعد على العدة عرفتي كاغا دارنتي مركو دنتي سيكا دميستي تري أو موبيلكي ستو قادو إدوبي وحو دابا كاسا اسفيري أنا درعي قورت إي سارين هو إلى حالكي وأوجهاي أو نكاس إدوبي دحدي هاي aniga kaligay ma ahane dhowr gabdhood oo Soomaali ah kuwa jaamacada loo soo dirsaday oo asaga saaxiib oo ka dhigtay oo laakiin ayaga raali ka ah soo asaga sheegay wixii dhanto Soomaali hadaa tihiin ugu dhahay tiri qiimaha ay leedihiin maxay tahay maxaa waa ku daxweena war dacwadaada yaa meel ka soo qaada dada gurigooda ugu imaadeen dhulkooda ugu imaadeen waad darantoo dhahay geedka gaartay mire ka guro afkeyga aamusnaan waxay tiri waxaan sheega ma aqaani idaa u dacwoodo ma aqaani ninkeyga waxaan dhaha ma aqaani gaaska nin kale taleeb lagu soo bedela asaga dantaas kaliimo baawurka u wada ma aqaani qof kala gaaska keen lambarka daawacno nin kala qabanay gaaska waa keena lambar gaawan aa laga wacay tiri cidi taqaano lambarkaas hadana gaaska keenayo waxay tiri guriga qaybta aan ka deganay dhanaanacay meesha ay soo urtay waxaan dhahay guriga marreeba aniga ninkeyga marmarsiyo barbara meeshaas ka soo baxaysa saan waaye barbara meesha guriga wada qabsanaysaan dhahay nin buufiya lagu soo dira marreeba yaa dhahay laga raro waa laga soo raray tiri Istanbul aan deganay Ankara ka soo dhacay dhahda Ankara maal aha meesha aan ka soo dhacay tiri magaalada kale aan ka soo dhacay tiri oo guryahoodan raqiis ee Istanbul ka raqiisan oo maxaa la lahaay Soomaalida hadana qayb u badan tahay ay jirto meesha ay imaaday waxay tiri uura ugu soo baxay waa walacay waxa raadiyay tiri si walba uurkaas aan iskaga soo ridi lahaay waa ii suurta galibaysay dhahday xiligi waxa la gaaray tiri ninkeyga oo imaan lahaay uurkeygana waa 5 bilood oo markaa naga maqayaa ninkeyga wuxuu dhahay fasaxaan helay waan soo laabanaya waa mirmiri tiraha imaanin maxaa soo doonay hadda lay baxday soo shaqeey maxaa ka qaldan aan uurna yeelan waa ogtahay maxaa dhacay saana tahay maxaa la soo cararay istuuf ninkii ku xanaaqay dhahday inta ninka ka daba qeylinayo isdiyaarinteeda xamar aan ku soo aadana isku diyaarinay 7 bilood ay u qaatay tir uurkeyga 7 bilood oo noqday waxaan sameeyay ma aqaan cid aan wax u sheegtay ma aqaan hooyaday ee aheeday tir qofka ugu horeeyay oo wax u sheega hooyan telefoonka ugu damisay hooyo saasa ugu dhacday caloosheedina had intaas ay mareen hooyan telefoonka ugu damisay yaab iyo amakaag dib damban iyo ma soo bixinay dhahday dahabka haysta gad wixii hay gad nin Soomaali oo meesha joogo oo hay muqalas la xiriir leh ani ilmaha ku bixi lahayn rabaa iqaamooyinkiina keen u dhahay iqaamooyinkii soo bixi tusi wixii lacag iiga cuno asagiina aan soo baxnay tiri maalintuu ninkeyga soo duulay oo Istanbul ka soo degay anigana waxay tiri magaalada Muqdisho ka soo degay waa ka soo tagay tiri Turkiga markaa ka soo tagay dhahda markaa asagana oo yimid meeshii WhatsApp la iskala xiriirayo WhatsApp igala soo hadlay maxaa dhacay guriga cusbaa iyo tilmaanta tagay guriga alaabta xitaa ma taala dhahay naagtaada waa ka guurtay guriga la dhisay u jiraan saaxiibo Soomaaliyan jiraan dhahay hotel iska deg markaa rabtidna Soomaali imaw afarti cunug saa u sii wad xitr guriga hooyadayaan geey hooyadayna waxay tiri irida iga bax waa ceebays waxa sheeg ma aqaani ilmaha bartaan ii dhigi irida iga bax gurigaas gabadhay saaxiibadihiina imaaday xirigaas 7 bilood ahayd uurkeeda bal dadka kale naxariis badan kala nasteexa badan ilaahay subxaanahu wa ta'aala qofka qalad wuu galaa maqaldamana waa ilaahay subxaanahu wa ta'aala gabadhi gurigaas markay imaaday ay sidii u oynayso oo ninkii yimid oo wax u sheegaa laheen hooyadu waxay tiri ilmihi inta isoo dhigtay way carartay gabadha wuxuu dhahay 2 biloodba waxaan ku arkay qalalaaso dagaal telefoonka inay ugu dagaalamayso ee wax ka qaldan yihiin gabadha ma xanuunsatay depression ma ku dhacay maska xanuun ma ahaa gabadhi si camal hadda inta laga raadinaa telefoonkiigu wuu shaqaynay tiri odow isoo duub WhatsApp-ka waa uga jawaab waxaan saaxiibow aniga wax aan ku sheegay ma aqaani hooyaday wax ku sheegtay may hooyaday wax ma ii sheegin ani uuraan leeyahay abshir waa uur hadaa leedahay yaa beheli karo war adigu uurku kuumilhi marka adi aan ku sagootinay ani waa ogeedba inaan fasax ahay oonan uur iyo waxba aan lahayn naagaha qaarkood waxaa jira ayagoo uur leh inuu dhiig baf iska soo dhaho dhiigis inuu ahaa laga yaabaa iyo waxaas u dhahay bal hayim iska dhiyo tir mayaan ahay tir may saaxiibow ninki saas ahay oo keenay gaaska inta adiga joogtay noo imaan jiray asaas yeelay aniga kaniini mu isiima aqaan shaah wuxuu igu dar ma oge sidee ninka guriga uu ogolta as aragno dhahay marka wiilkii aan hee is aragno mis arkeen hadda is aragno waa idilay tir marka hadda is aragno waa idilay inta idili lahayd oo jidkan lagu jiijiid lahay oo la ceebeysan lahay hadda meelay aadamo ogolay halay dhahday sunacaba waan is dilaahay gabadha marka waxay ku waanaysaa inay is dilin waxaan qadar ee tahay ilaahay uu ku qaaday ayadana shaydaan uu ku qaaday ilaahay uu ku qaaday aan dhihine waxaan qadar inay tahay
oo shaydaan oo ku qaaday shaydaan isku qurxiyay ninkaani